maanta waxaanu booqan doonaa dal cajiiba oo la taariikh qoto dheer oo mucjisooyin badan xambaarsan. waa dal ay taariikhdu ka diiwaangelisay dhacdooyin waaweyn oo dunida saameyn ku yeeshay, dal ay dadkiisu ku caan baxeen aqoon, hal abuur iyo ilbaxnimo. waa dal door muuqda ku lahaa dagaaladii waaweynaa ee Yurub, isla markaana dunidu ku xasuusato qurux, barwaaqo iyo hiddo qani ah. waxa ugu yaabka badan waa inuu leeyahay caasimad si sharaf leh loogu naanayso boqorada webiga Danuub. ku soo dhawaada dalkan cajiibka. Hungary waa dal ku yaala bartamaha Yurub. waa dal xidhan oo aan bad lahayn, balse wuxuu la wadaagaa Austria, Slovakia, Ukraine, Romania, Serbia, Croatia iyo Slovenia. badka dalkan wuxuu gaadhayaa qiyaastii 93,000 oo kiiloomitir laba jibaaran. Hungary waxaa ku nool qiyaastii 9,500,000 oo qof. dadka intooda badan waxay ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan caasimadda Budapest. luqadda rasmiga ee dalkani waa Hungarian oo ka duwan dhammaan luqadaha kale ee Yurub. taariikhda Hungary waxay dib ugu laabanaysaa in ka badan 1000 sano. boqortooyadii Hungary waxaa la aasaasay sanadkii 1000 ee milaadiga. dalkani wuxuu soo maray dagaallo iyo xukunno kala duwan oo ay ka mid yihiin boqortooyadii Austro-Hungarian. dagaalkii labaad ee adduunka kadib, Hungary waxay hoos tagtay nidaamkii shuuciga ahaa, balse sanadkii 1989 waxay noqotay dal dimuqraadi ah. caasimadda Hungary waa Budapest oo uu kala qaybiyo webiga Danuub, waana xarunta siyaasadda, dhaqaalaha iyo dalxiiska dalka. Hungary waxay ka kooban tahay 19 gobol iyo caasimadda Budapest oo leh ismaamul gaar ah. Hungary waxay caan ku tahay muusiga, qoobka ciyaarka hidaha iyo xafladaha dhaqanka. cuntada ugu caansan ee Hungary laga helaa waa goulash oo ah maraq iyo hilib dhadhan gaar ah leh. cuntooyinka kale ee caanka ee dalkaas waxaa ka mid ah langos oo ah roodhi shiilan. dhaqaalaha Hungary waxa uu ku tiirsan yahay warshadaha, adeegyada, beeraha iyo dalxiiska. dalkan wuxuu leeyahay warshado waaweyn oo soo saara baabuurta, waxaana maalgashi ku leh shirkado caalami ah. sidoo kale Hungary waa xubin ka tirsan midowga Yurub. shaqooyinka ugu badan ee dalkaas laga shaqeeyo waxaa ka mid ah warshadaha, caafimaadka, tiknoolajiyadda, waxbarashada iyo adeegyada. mushaharka shaqaaluhu celcelisaan bishii waxa uu gaadhayaa qiyaastii 1,400 euro ilaa 1,800 euro, inkastoo mushaharku ku xidhan yahay xirfadda iyo goobta shaqada. miisaaniyadda Hungary waxay gaadhaysaa ku dhowaad 246 bilyan oo doolar sanadkii, taasoo dalkaas ka dhigaysa mid ka mid ah dhaqaalaha ugu xooggan ee wadamada ku yaala bartamaha Yurub. dakhliga sanadlaha ee soo gala qofka ka shaqeeya Hungary waxa uu qiyaastii gaadhayaa 26,000 oo doolar sanadkii. Hungary waxay leedahay jaamacado caan ah oo soo jiita arday badan oo ku kala nool daafaha dunida, gaar ahaan kuwa barta caafimaadka iyo injineerinka. waxbarashada aasaasiga ah ee dalkan waa waajib, waxaana carruurta iskuullada la geeyaa xilli hore. Hungary waxay leedahay jaamacado sumcad ku leh Yurub iyo dunidaba, waxaana ka mid ah Eötvös Loránd University oo ah jaamacadda ugu da'da weyn Hungary, waxaana la aasaasay sanadkii 1635. waxaana caan ku tahay jaamacaddani cilmiga sayniska, sharciga, caafimaadka iyo cilmiga bulshada. waana mid ka mid ah jaamacadaha ugu sumcadda badan bartamaha Yurub. sidoo kale Budapest University of Technology and Economics waxaa la aasaasay sanadkii 1782, waana jaamacadda ugu caansan Hungary ee bixisa injineerinka, tiknoolajiyadda iyo dhaqaalaha. waxay soo saartay injineeriyo cilmi-baarayaal badan oo caan ka noqday dunida. labadan jaamacadood ayaa loo tixgeliyaa kuwa ugu magacayo sumcadda weyn dalka Hungary. Hungary waa dal xubin ka ah midowga Yurub iyo ururka Schengen oo ay ku midaysan yihiin dalal badan oo Yurub ku yaala, kuwaasoo shacabkoodu baaritaan la'aan ka gudbaan xuduudaha. baasaboorka Hungary waxa uu ka mid yahay baasaboorada ugu awoodda badan adduunka, kaasoo u fududeynaya muwaadiniinta dalkaas inay si fudud oo fiisa la'aana ugu safraan 183 dal oo dunida ku kala yaala. Hungary waxaa maray webiga Danuub oo ka mid ah webiyada ugu waaweyn Yurub. dalka intiisa badan waa dhul bannaan, balse waxaa ku yaala buuro iyo harooyin qurux badan. harada Platon waa harada ugu weyn bartamaha Yurub, waana meel dalxiis oo aad loo booqdo. Hungary waa dal isku darsaday taariikh fac weyn, dhaqan hodana, waxbarasho tayo leh iyo dhaqaale kobcaya. inkastoo aanu ka mid ahayn dalalka ugu waaweyn Yurub, haddana wuxuu leeyahay muhiimad weyn oo taariikheed iyo mid dhaqaale.
ku mahadsanid daawade waqtigaaga aad ku bixisay daawashada muuqaalka. haddii aad wax cusub ka faa'iiday nagu taageer like share iyo subscribe. waan kulmi doonaa muuqaalka xiga insha Allah.